ahaa in masaajidka lagu daro meel qofkii lahaa aanu ogolayn waayo nabiyullaahi sulaymaan baa laga diiday oo la yidhi ha ka dhisin agoontaasi ilaahay ku yidhi intuu amray dhulkooda ilaa ay ka raali noqdaan baa la faray nabiyullaahi sulaymaan atarkaasaa jira kama dhisi kartid masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel aanu ka raali ahayn qofkii lahaa mar allaaliya markii kelmadda uu yidhi sayd binu saabit ayaa waxa uu leeyahay Cabbaas bin Abd al-Muttalib subhanallah dhulkaasi ilaahay dartii baan u bixiyay masaajidkaasi laba arrimood baan diiday markaan amiirul mu'miniinka ku yiri kaama iibinayo mana bixinayo dhulkay way amiirul mu'miniinku intuu salaadii subax kadib igu soo kaalahay ayuu hadal yar oo kooban iska yiri ama masaajidka noogu dar masaajidkii baa cidhiidhiye ama naga iibi ana waxaan diiday buu yiri sidoo ila hadlay dabata waxaan ku yiri mana iibinayo kuma la daray war hadalka u fiirsan maxaa maanta ka jira dalka nin sharci ku fadhiya oo madaxweyne ah nin waraaqa sita sharci oo 4 maxkamadood ay u xukumeen oo muslimo oo 80 jira dhulkiisa inuu ciidan xoog kaga qaado 2200 balo oo yiraahdo wali madaxtooyan ka dhigay aqlan wa shar'an la yuqbalu minhu haday diini jirto haday karaama jirto haday dadnimo jirto haddii damiir jiro haddii dad wax garanaya jiraan wax la aqbali kareema kamay dhicin taliskii aynu la dagaalanay 2200 baloon oo maxkamad sharci xukuntay oo 4 maxkamadood ay xukumeen inuu qof sharciyad ku fadhiyo yiraahdaana xoog ku qaadanay oo waliba ciidan dhiso oo ka laga qaadayo cashuurtu bixinayo wax lagu sii oo hargeysa oo 1.2 milyan ay ku nool yihiin ay dhageystaan oo daawadaan aqla wa shar'an la yuqbalu min haday taasi shaqaynayso oo qof walba sidoo doonaya uu yeelayo adana madaxweynaha noqdo ama wasiir ha noqdo ama nin garo ma cascas ha noqdo oo wixii hargeys ku duntay dulmigaasi oo wixii hore loogu qaxay waa wax lagu qixi doono hadduu dulmigu bato ittaqu dhulma فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم كدور صدق لكن هل من ضمير وهل من مجرى الضمير مجرى وحق وقرقارية مجرى وحظلم جديدية مجرى وحس وقرقارية اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة warkada baan leeyahay madaxweynaha war lagu jabayaa kada halka laga bilaabo ilaa xadka aynu Itoobiya leenahay dhulaan cid lahayn ma jirto halka laga bilaabo ilaa aad xeebta tagto dhulaan la lahayn ma jiro halka laga bilaabo ilaa hawd gunti xuduud aynu Itoobiya la leenahay dhul aan calaamad sayn ma jiro war dulmiga kadaaya dadka war waqtiga la baneeyay qofku inuu dhiidhiyo oo marka hantidiisa lagu qabsado war xaq u gargaar war dulmiga diida war dulmigu cid walba waa gaari doona hadii laga gargaari waayo in badan baan ka warwareegay inaan qadiyada ka hadlo laakiin markaan arkay inaan cidi ka hadlayn intii aqliga iyo cilmiga iyo damiirka iyo garashada lahayd waxay ugu kaliftay inaan maanta ka hadlo intaanay aan la weydiin fi yawm al-qiyama dhacdaadu taagneed oo dulmiya oo aad garanayso taariikhdeeda maxaad uga hadli weey adabu saa'ilin wa hikmatu qad hadii cid samada soo dumiso hadii cid dhulka jarto subhanallah oo bani aadam ay ku xiran tahay inuu sidoo doono yeelo لو اجتمعت الأمة على أن يضروك
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك جفت الصحف ورفعت الأقلام حتى يمدوا يسوتكتو في كبيرها وصغيرها ومقعيدها إنay wax ku yeelaan cid wax ku yeeli kartaa ma jirto ilaa bishayin qad katabahu allahu lak wax ilaahay ku qoray mooyaane jaffat as-suhuf wa rufi'at al-aqlam wixii dhacayay waxa dhici doona ilaahay baa sii qadaray walaw ijtama'at al-ummatu ala an yanfa'uk lam yanfa'uka illa bishayin qad katabahu allahu lak jaffat as-suhuf wa rufi'at al-aqlam inaad xaqa uga leexato cid baa wax ku tari doonta ama dad baa wax ku tari doona cid ku anfici kartaa ma jirto wax ilaahay ku qoray mooyee nafciga iyo darriga labadaba sidaynu aaminsannahay caqiidadeena ka mid ah war xaqa isbarbartaag ilaahay ummad ma dumiyo ilaahay ummad ma qixiyo ilaahay ummad ma dulmiyo hataanay iyagu isdulmiyo war dulmiga diida war qof haddii la dulmiyo koox la dulmiyo dad la dulmiyo oo waxyaalaha ummaduha ay ku dumaan وعزتي وجلالي اتقوا دعوات المظلوم ورقفك ظلما قيلديسا اسك إلالي بريد إلهي بريد فإنها تسعد إلى السماء كأنها شرار وأي الصمد أي أبحضا قفك اسمرك ودلميه وإلي إلهي وادي أركيسا يضر دمبيلة وتفتح أبواب السماء الصمد لغفرة وعزتي وجلالي وإن ديدان كدارتي كرامة ديدان كدارتي وحدي صحيحة لأنصرنك ولو بعد حين